السلام عليكم دمان خيارتي ku xiran channelkan Eid Mubarak meel kasta aad ku sugan tahay iyo qaab kasta oo muuqaalkan ku soo gaarayo waxaan ku leeyahay farxad Eid hadii ay tahay markii koobaad ee aad aragto muuqaalkayga magacaygu Cabdiraxmaan Soomaali waxaan ahay wariye Soomaaliyeed oo 15 sanadood ee ugu dambeeyay ka hawlgalay warbaahinta Soomaaliyeed balse hakad galiyay labadii sano ee ugu dambeysay shaqadii uu hayay ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale xirfadii warbaahinta lafteedaba mar raba inaan waqti badan kaaga lumiyo sababahan u joojiyay shaqadan iyo labadii sano ee ugu dambeysay meesha aan jiray iyo waxa sababay dabada ka riixay xilligaas inaan joojiyo ama hakad galiyo shaqadii warbaahinta waxaan ku faahfaahiyay waraysi dheer oo aan siiyay walaalkeen engineer Hosow oo xilligaas inagu soo booqday dalkan Ingiriiska ama halkan martin ugu ahaa hadii aadan waraysigaasi daawanin waxaan soo dhigi doonaa linkiga hoose ama description-ka muuqaalkan halkaas ayaad kaga bogan doontaa oo ka daawan doontaa sababaha ugu waaweyn ee dabada ka riixay xilligaas inaan joojiyo ama hakad galiyo shaqadii aan hayay nasiib wanaag waan soo laabtay waxaan munaasabadan Eidda ku soo beegay maanta daafurka shirkad aan doonayay inaan ugu shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed oo la yiraahdo Halkaraan akhyaartii ugu xidhnayd ama ku taxnayd barnaamijyada aan soo gudbin jiray sida ay ka wada dhageysan yihiinba waxaan isticmaali jiray personal brand ama magacayga shakhsiga ah kaasoo ahaa Cabdiraxmaan Soomaali ama Somali Production aniga iyo asxaabta ila shaqeyn doonta iyo teamkaygu waxaan isla garanay inaan ka guurno magacaas shakhsiga ama personal brandka isla markaana aan dhisno shirkad leh magac gaar ah oo lagu garto oo ay ka soocan tahay shirkadaha kale ee Soomaaliyeed ee warbaahinta waxa laga yaabaa inaad isweydiiso magaca Somali Production maadaama muddo badan lagu soo shaqeynayay dad badan la baray oo ay yaqaanaan maxay tahay sababta looga guurayo Somali Production waxa uu ahaa magac aad iyo aad aan tacab fara badan u geliyay 13 sanadood oo la soo dhaafay ayaan ku shaqeynayay magacaas waxaan baray bulsho fara badan oo Soomaaliyeed waxaan ku soo gudbiyay muuqaal aad iyo aad u tiro badan oo nooc kasta leh kuwaas oo gaaray bulsho aad iyo aad badan oo Soomaaliyeed oo kala jooga daafaha caalamka balse isbedelku waa qayb kamid ah sunnaha nolosha waxaana muhiim ah inaad la jaan qaado isbedelka waxaana sababay in Somali Production aan ka guurno aniga iyo teamkaygu sabab dhowr ah oo ay kamid ahayd koow magaca Soomaali oo ah magac bulshada oo dhan u dhaxeeya ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxeeya oo aan sumad gaar ah u noqon karin hay'ad ama shirkad gaar loo leeyahay laba magaca production-ka oo ku ladhan Soomaali oo ah hal wax oo waxyaabaha aan doonayna inaan qabano kamid ah marabno production kaliya inaan ku ekaano ama aan isku koobno waxay xadidaysaa maaragtay waxa aad u taagan tahay marka aad magacaaga hal wax ku ladho tasaddexaad ee si xoojisay in laga guuro magaca Somali Production markaan tashanay waxa weeyaan si wadida shirkadan hadii aad doonayso inaad ka diga rogato saaxadda saxaafadda ama saaxadda warbaahinta Soomaalida oo aad wax kale u diga rogato waa doonayso brandkan iyo shirkadan inay cid kale sii wado